xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeelanaya xaruntooda Muqdisho ee Villa Hargeysa. Kulankan oo ah mid muhiim ah ayaa lagu wargeliyey dhammaan senatarada golaha iyada oo guddoonka uu ka socday in kulanka soo xaadiraan. Ajendaha kulanka ayaa lagu soo koobay 2 qodob kuwaas oo kala ah: 1. Ansixinta xubinta guddiga dastuurka ee OC. 2. Doodista iyo wax ka qabadka xeer hoosaadka aqalka. Xildhibaanada aqalka sare ayaa la filayaa in ay marka hore u codeeyaan xubinta guddiga dastuurka ee OC, kadibna ay doodaan wax ka beddelka xeerka hoosaadka ee golahaasi. Inta badan guddiyada joogtada ah ee aqalka sare ayaa soo diyaariya ajendayaasha ayaga oo u soo gudbiya habdhowrka si loo horkeeno golaha ugana doodo. Kulamada aqalka sare ayaa haatan si caadi ah ku socda, waxayna kulamadii u dambeeyey qaarkood la galeen xildhibaanada golaha shacabka, sida doodista miisaaniyadda 2023. Baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaqadiisu waxay tahay meelmarinta shuruucda dalka iyo sidoo kale la xisaabtanka hay'adaha dowladda. Xildhibaanada ayaa sidoo kale warar hoose waxa ay sheegayaan in qaarkood ay dooda keeni doonaan ku saabsan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaybaha ammaanka ee magaalada Muqdisho gebi ahaanba ka aamusan yahay, islamarkaana ay habboon tahay in uu ka hadlo xaaladaha ammaan ee magaalada Muqdisho.